waxa aan idin sheegayaa in xayraadii laga qaaday wargeyskii haatif ee af Soomaaliga ku soo bixi jiray wargeyskaasi sida wada ogtihiin wuxuu xayraa ilaa 2014 bishii Abriil toddobadeedii ayaa galab iyadoo la shaqeynayo oo la soo saarayo koobigii maalintii berrito oo kale ayaa goor casara ay bileysku weerar ku soo qaadeen xarunta shirkadda warbaahinta haatif halkaas ayay xoog kaga dareeriyeen journalistayaashii ka shaqeynayay iyo shaqaalihii xarunta sidii baanay aanu uga maqnayn oo lanoo diiday inaanu ka ag wareegno waxaanu dabeeto sidaa ogeedeen waxa dhacday in markii ay ciidamadu la wareegeen xarunta wargeyska ay xukuumaddii xilligaa jirtay haddana maxkamadna saartay oo ina soo dacweysay iyadoo wargeysku xidhan yahayba dacwaddaas bishii Juun 2014 waxa ay riday xukun xariga ah oo lanagu xidhay aniga oo Yuusuf Cabdigowa mulkiilihii wargeyska iyo tafatirihii wargeyska Axmed Cali Ciga iyo wargeyskiyo xayraad la saaro ruqsadiina uu ku soo bixi jiray laga noqdo xukunku intaasoo ahaa waxa lanagu eedeeyay inaanu dalka iyo ummadda Somaliland dhibaato u geysanay madaxda qarankana aanu caadeysanay inaanu aflagaadino ambiil baanu ka qaadanay xukunka mudduu soo socday dhawaan ay maxkamadda rafcaanku iyadoo mahadsan xukunkaa hore burisay noo soo celisay ruqsadii uu wargeysku soo bixi jiray xayraadiina ka qaaday wargeyska waxaan ka hadlayaa waxa weeye waa wargeyskii af Soomaaliga ku soo bixi jiray waxa intaas dheer oo nagu dhacday in laba wargeys oo kale oo shirkadda Haatif Media Network ay soo saari jirtay iyagana ay xukuumaddu naga joojisay inay soo baxaan iyadoo aanu jirin cid ka soo dacwootay iyo wax xukuno ku dhacayba labada wargeys inkastoo kan horeba uu dulmi ahaa haddana labada wargeys ee kale iyaga ilaa hadda cid amarkaa soo saartay in la xayiro in aan la soo daabicin ilaa hadda ma ogin laakiin annagu dacwad ayaanu u gudbinay maxkamadda annagoo ka cabanayna joojinta labada wargeys ee la joojiyay ee aan iyagu cidina soo dacweyn dacwaddaasi hadda waxay taallaa maxkamadda gobolka iyadaanaynu ka warsugaynaa kolba natiijadu go-aankeedu siday noqoto laakiin annagu waxaanu daalibnay oo aanu ka codsannay in dawladda magdhow la nooga xukumo burburka iyo khasaaraha meherad ahaan iyo dhaqaale ahaanba na soo gaadhay awgeed